waqtiyada qaar waxaynu isku daynaa inaynu furno albaab cusub si aan horay uga dhaqaaqno halkaan maanta joogno, balse fashil ayaa inagu yimaada. dabadeed waxaynu albaabka u garaacnaa si xoog badan oo aan kala joogsi lahayn ilaa ay gacantu xanuunka ka dareento. waxaynu goor dambe ku baraarugnaa in albaabku dhanka kale ka furmayo, waana qosla. haddaba dhibaatooyinka ku xeeran noloshu waa caynkaas. waxaa lagu xalliyaa caqli iyadoo aan awood loo isticmaalin. taasina waxay kugu sababaysaa inaad wax badan xalli karto noloshaada iyo mustaqbalkaagaba. ugu dambeyntii daawade, waxaan kaaga tegayaa fahanku isaga ayaa kaaga horeeya ficilka. ha samaynin waxa aanad fahansanayn si aanad ula kulmin waxaanad filanaynin. haddii ay tahay markii ugu horreysay halkan soo booqato, fadlan subscribe saar siina gaarsii saaxiibada. wabilaahi tawfiiq.